kulanti wacan daawadayaal halkani waa kanaalka qalbi Soomaali TV. war haddana soo gaadhayna waxa uu sheegaya inuu xorriyadiisa dib u helay fanaanka caanka ee loo yaqaan Khadar Keyow oo 3 toddobaad ku xidhna magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, balse waxa la isweydiinayaa yaa ka dambeeyay sii deyntiisa. ku soo dhawaada barnaamijka. inta kadib daawadayaal sii deynta Khadar Keyow ayaa waxa gacan ka geystay xildhibaan Soomaaliyeed oo loo yaqaano xildhibaan Cabduqaadir Carabow oo ah xildhibaan ku matala golaha shacabka iyo safaaradda Soomaaliya ee dalka Itoobiya. dhinaca kalena xildhibaan Carabow ayaa arinta darteed uga baxay Muqdisho mudana ku sugnaa Itoobiya si uu xaqiijiyo ama u soo daayay Khadar Keyow. dhinaca kalena laanta socdaalka iyo jinsiyadaha ee dawladda Itoobiya ayaa dabayaaqadii bishii December Khadar Keyow ka xirtay garoonka diyaaradaha ee magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya, balse dawladda Itoobiya iyo Soomaaliya weli faahfaahin kama aysan bixin sababta Khadar Keyow loo xiray, balse waxaa la rumaysan yahay inay la xiriirto arrimaha dhanka sharciga ee socdaalka.